مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان وحين صدرقنا حماك سقنا بشان سامحاي يا رمضان وحين صدرقيق حماك سقنا بشان سامحاي يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى nimcooyinka ugu waaweyn ee dadka mu'miniinta uu ku manaysta waxaa ka mid ah mawsimka cajiibka badan ee nagu soo dhow. maalmo yar kadib waxaa marti ahaan noo soo mari doona sanadooyin badanna na soo maray dayf kariim ah iyo marti cajiib leh. waa bisha barakaysan ee ramadaan. ramadaan walaalayaal waa shahar aad iyo aad u qiimo badan, waa marti aad iyo aad u cizi badan, waa dayf kariim ahoo qiimo iyo sharaf iyo karaamo iyo cizi markaa xambaarsan. sidaa darteed ayaa waxaana laka rabaa soo dhoweyn, waxaana laka rabaa istiqbaal inaan ka hor tagno oon soo istiqbaalino oon soo dhoweyno martigaa nagu soo socda. waxaana laka rabaa inaan xanjeerano, waxaana laka rabaa inaan gacmo furan ku soo dhoweyno. waa dayf cajiib badan, imaashihiisaa lagu farxaa, dhammaashihiisa waa laga murugoodaa. dadka muslimiinta ah adduunka caalamka meel kastay kaga joogaan waxay ku jiraan farxad iyo raynrayn. aad bay ugu faraxsan yihiin soo gelitaanka iyo imaashaha bisha barakaysan ee ramadaan, waayo waa fadli ilaahay. qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu. waxaad ku dhahdaa ilaahay fadligiisii naxariistiisa ha ku farxaano ummadda mu'miniinta ah, waayo waxay ka qayr badan tahay wax allaala waxa la jamciyo adduun ah. maalmo dhow haddii ilaahay yidhaahdo walaalayaal waxaa nagu soo beegan bishii kariimka ahayd, waxaa nagu soo beegan bisheennii. waa bishii sabirka, waa bishii daacada, waa bishii qur'aanka, waa bishii kayrka iyo wanaagga la kasban lahaa. 11 bilood bay naga maqnayd. mar allaala markay noo timaado oo ayna soo qaabisho oo ay soo gasho, waxaa la rabaa in si fiican looga faa'iidaysto. waxaa la rabaa in si fiican loo soo dhoweeyo marti markay imaanayso. waxyaabo badan baa lagu soo dhoweeyaa, laakiin martidaan hadda aan sheegaynay nagu soo food leh uma baahna meelay seexato, uma baahna sharaab iyo cabto, uma baahna طacaam iyo raashin la siiyo, balse waa dayf annaga dan noo ah. waa marti annaga dan noogu jirto dembigana loogaga dhaafo, ilaahay aan ugu dhowaano, naartana loogaga xoreeyo,
in badan oo ummaddan ka mid ah oo cadaab mutaysatuu ilaahay naarta kaga xoreeya subxaanahu wa tacaala. bacdamay xaaladdu sidaa tahay waxaa nala gudboon walaalayaal ramadaankii hore saan ahayn inaanan noqonin, in aan ka cibaado badnaano midkaan, inaan ka akhris qur'aan badnaano midkaan, in aan ka salaad istaagid badnaano midkaa soo socda. sababtu waxa ay tahay waa shaharka keliya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala fursad ahaan uu u siiyey ummaddan khayr iyo wanaagna markaa u ah. haddii sidaa aan fahamno oo aan ogaano, idan waxaa nala gudboon inaan ogaano ramadaan waxa uu yahay. ilaahay ayaa ummadda ku waajib yeelay, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka iimaanka leh ee rabbigood rumeeyayow. ilaahay waa naadinayaa oo wuxuu u dhawaaqayaa mu'miniinta, wuxuu u dhawaaqayaa in allaala intii iimaan leh, wuxuuna ugu wacayaa magac laysugu waca kan ugu qiimo badan, yaa ayuha aladiina aamanuu. waa nidaa, waa dhawaaq, waxa uu ka yimid rabbulciza. wuxuu u socdaa wiil walba iyo gabar walba oo iimaan leh, wuxuu ku socdaa wiil walba iyo gabar lahoo iimaan leh ayuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu, markay mu'miniinta maqlaan way soo istaagaan, way la beegiyaan, ilaahay bay dhib u soo raariciyaan. waayo yaa ayuha aladiina aamanuu qur'aanku waa laba mid, ama nahyi ayaa ka dabamara ama amar, ama waxbaa la amraa ama waxbaa laga reebaa. sababta yaa ayuha aladiina aamanuu loo yidhina waxay tahay waa dadka keliyay u dhaga nugul ee maqla awaamirta ilaahay, waa dadka keliya ee u dhaga nugul ee maqla nawaahida ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu markuu ilaahay yidhi oo mu'miniintii ay wada kaceen oo ay u diyaar yihiin waxa loo diri doono, oy u diyaar yihiin amarka loo fari doono inay qaataan ama waxa laga reebi doono inay ka tagaan, ayuu yidhi kutiba calaykum asiyaam. soon ayaa laydinku qoray. ma soomaysaa mu'miniine? yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. afhaysasho ayuu ilaahay idinku waajib yeelay, siyaam ayuu ilaahay idinku qoray subxaanahu wa tacaala. inaad maalintii baahataan, inaad maalintii haraadaan, inaad maalintii ka tagtaan shahwaadkiinnii xalaasha ahaa, waa laydinku qoray. ilaahayow ma keligeen baad nagu qortay? maya, kamaa kutiba cala aladiina min qablikum, dadkii adinka idinka horreeyey sidii loogu qoray oo loogu waajib yeelay oo kale buu yidhi ila subxaanahu wa tacaala. waanala sabargelina, ilaahay waana sabargelinayaa. ummatu muxameday keligiin ma aha, ummadihii hore ee idinka horeeyaa lagu waajib yeeli jiray, ayagaa la amri jiray, ayagaa la fari jiray, kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. maxaan mudan nahay marka haddaan soonno? lacallakum tattaquun, inaad cabsataan buu yidhi ila subxaanahu wa tacaala. idan siyaamku taqwa qofka u kordhiya, alla ka cabsi ayuu qofka u siyaadiyaa. sababtu waxay tahay waa cibaadada keliya ee sirta ah ee ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa subxaanahu wa tacaala. waa cibaadada keliya oo aan loo kala dhexgelin ilaahay iyo addoonkiisa. waa cibaadada keliya oo qof kaloo ogaan kara inaad sooman tahay uusan jirin ilaa caalamiinta rabbigooda maahane. markaad guri gashood wax cunto oo aad wax cabto ood masaajidka nagu soo gasho ood afka tirtirataad dhihi kartaa waa soomanahay. caryaa ku dhihi kara ma soonid. axad kari kara inuu ku dhaho hebel ma soonna ma jiro. qofku dhihi kara heblaayo ma soonna ma jirto ilaa ilaahi maahane subxaanahu wa tacaala. saa darteed baa cibaadadaa waxay mutaysatay inuu ilaahay yidhaahda kullu camali bni aadam, camal kastoo bani aadamku qabta asagaa iskale ila siyaam, soonka mooyaane. fainahu lii wa ana ajzi bih, soonka anaa iskale buu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala. cibaado kasta ilaahay baa abaalmariyaa, laakiin salaada iyo soonka iyo wixii oo dhan adaa qabtay, wixii oo dhan waa lagu soo tiiriyey. siyaamka ilaahay buu isku tiiriyey tashriifka, karaamada, qiimaha uu leeyahay darteed. ilaa soonka maahane fainahu lii, ana iskale buu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala. anaana abaalgudaaya, waayo qof kaloo ila ogaan karaa ma laha. masjidka markaad soo gelaysa waa lagu jeeday, markaad weysaysanaysa waa lagu arkaayey, rukuucda iyo sujuuddan kuugu jeednay, laakiin soonkaaga rabbulcaalamiin maahane qof kaloo ogaan karaa ma laha. fainahu lii wa ana ajzi bihi, anaana abaalkiisa bixinaya buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, ramadaan baa soo dhow. ramadaanka haddii ilaahayna gaarsiiyo
maalmaha dhiman ee ilaahay naf iyo xayaata nagu gaarsiiyo faman shahida minkum shahra falyasum ha sooma buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala waa amar. waxaad la socotaan ramadaankii hore dad badan baa nala soomay, dad badan baa safka hore taraawiixda ku tukaday. walaalayaal dad fara badan ayaa nala qiyaamay oo nala taraawuxay oo qur'aan nala aqriyey oo nala ciiday oo sakaatulfidri bixiyey, caawana god hoostiisa ku jira. caawa nasiib aan u yeelanin wallaahi inay midkaa soo gaaraan way jeclaan lahaayeen, laakiin ma suuragelin. way jeclaan lahaayeen inay nala soomaan haddii ilaahayna gaarsiiye laf ahaanteennaba, laakiin ma suuragelin. ilaahay bay la kulmeen, rabbi bay aadeen, xayaataday adduunkay ka tageen, xayaato bax bay mareen. meel dheer ha aadin, waa ramadaantii hore. dad badan baa saa ah, qolag badan oo annaga naga mid ah oo ramadaankan gaari doona xaqiiqo ah kan dambe inaysan haleeli doonin. maxaa nala gudboon? maxaa nala ka rabaa? adduunku waa kaa. aawa intii lasoo xabaalay darab, aawa intii bishii hore lasoo xabaalay, aawa intii kasii horaysay, aawa intii meeshaan lagula tukaday salaad janaaso ah. walaalayaal, ina fii dalika lacibratan liman yakhshaa. wallaahi cibra ku jirta, wallaahi cibray noo tahay, wallaahi waxaan kuwaana qaadanay noo tahay, wallaahi waxaan xumaan uga tagnay noo tahay, wallaahi waxaan diin alla u cararno oon khayr ad u samayno ayay cibro noogu tahay. ramadaankaanba qofkii ilaahay gaarsiiyo xaaladdaa ogow, mar kasta maskaxdaada ha ku jirto. war qof shalay dhinacaaga taagnaa oo taraawiix kula tukaday ayaad gacantaada ku soo aastood geysay qubuuraha iyo meelaha laisku aasno. hawa anakii kullu nafsin daa'iqat lmowt, naf kastaa geeri bay dhadhaminaysaa, waa la qaniimaystaa. maalmaha gaaban ee adduunka la jooga waa la qaniimaystaa. fursadaha laysagama dhumiyo ciyaar ma laysaga dhumiyo maalaayacni, ma laysaga dhumiyo bannaan istaag, ma laysaga dhumiyo haasaabo iyo maaweelo aan qiimo iyo wanaag lahayn. xaaladdu waa sidaa. ma raba inaan idin dhaho timir baa lagu afuraa iyo waa la saxuurtaa, waayo in badan baa la garanayaa. laakiin ujeeddadaydu waxa ay tahay ramadaanka aan soomayno ha noqdo kiina loogugu dembi dhaafaayey, ha noqdo midkii naartana loogaga xoraynaayey, ha noqdo midkuu ilaahay nagu jeclaanayey subxaana wa tacaala, ha noqdo midkuu shaydaanka nagu nacaayey lacanahu allah, ha noqdo midkii ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu dhowaanaynay. ujeeddada iyo baahida la qaba waa midda, laakiin ma aha timir baa lagu saxuurtaa iyo 3 mir ama 4 xabbaa la cunaa. xaaladda waa ka weyn tahay walaalayaal. weliba zaman fitan baa lagu jiraa, waqti cajaa'ib leh baa lagu jiraa, waqti fitanta ay badataan lagu jiraa. waxaan ku dhex soomaynaa fitan dhexdeeda, waxaan ku dhex soomaynaa dumar qaaqaawan dhexdooda, waxaan ku dhex soomaynaa suuq fitan iyo qish iyo qiyaano dhexdiisa, waxaan ku soomaynaa adduun tagayura dadkii ku dhex joogay, waxaan ku dhex soomaynaa meel xaraan iyo fisqi iyo diin alla looga fogaaday. idan qof walbow is-ilaali, war qof walbow soonkaaga koontarool, war qof walbow soonkaaga u nax, war qof walbow iska ilaali soonkaaga wixii markaa waxu dhimaaya. ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. 2 arrin bay ku suura gashaa in la soomo. 2 arrin haddii la helo qof kasta oo mu'min ah waa inuu soomaa. maanta hadday shacbaan gaarto 29 muslimiinta oo dhan waxaa laga rabaa inay u taxaariyaan oo ay u qasdaanay fiiriyaan bisha dhalashadeeda. haddii la arka waa la soomayaa, waayo 29 way dhici kartaa inuu shacbaan ku dhammaado. waayo rasuulku wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi, bisha aragtideeda ku sooma, aragtideedana ku afura. 29 muslimiinta waa fiirinayaan bisha, way dhalatay waa la soomayaa. hadday dhalan weyso ama la arki waayo oo ay daruur qariso fa akmiluu ciddata shacbaan 30. bisha shacbaankaa 30 u dhammaystira buu dhahay nebiga. labadaa hadday suuro gasho, ama shacbaan oo 29 ah bishii ay ku dhalato, ama shacbaan la kaamilo 30 laga dhigo, labadaa haddii mid ka mida ay dhacdo, muslimiinta waa inay soomaan oo ay ilaahay u soomaan subxaana wa tacaala. waayo nebigu wuxuu yidhi naxnu waxaan nahay qoom ummiyiin ah oo aan wax qorin waxna aqrinin. ashahru haakada wahaakada, bishu marna waa 30 marna waa 29. bilaha islaamka mid 28 ku dhammaato sida February ma jirto, mid 1 iyo 30 gaarto sida midda aan ku jirno kalena ma jirto.
waa 29 iyo 30 labadaa ayuu ilaahay ku qoray subxaanahu wa tacaala. hadda labadaa hadday suuragasho la arko waa la soomaa. habeenka saa ay u dhalato muslimiinta taraawiix baa u bilaabanaysa. waa koow. habeenkeedii laba arrin oo waaweyn baana loogaga baahan yahay. midda koowaad waa inaan niyo la nimaado walaalayaal. wax aan la niyeysan ilaahay ma aqbalaya. inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa. camalada waxaa laga fiiriyo ka ansaxa waa niyada. qof walbana wuxuu niyeystuu leeyahay buu yihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ta koowaad waa niyeysanaynaa. niyada maxalkeeda waa qalbiga in la tallafudo. daba markay afuraan sheekha imaamka masaajidka intay u yimaadaan soonka noo xig nawaytu soomi qadan waxbaa loo aqriyaa. diinta islaamka ka mid maaha. inama alacmaalu biاnniyaat وإنما لكل امرئ ما نوى. وبحيا جلاس دي مركو ساعة وصنقنا ويغفر ما يحد. وبحيا وحيرا الصحور مركو حر ولا حرنا يا نيذا محل كذا وقلبك وإحنا لك بهاي خوف الله لا خوف كان يسنين صلاة الصبح تلشدي ذا كهر صون ملبو هاي نبيك مد الله بارنا وصحور تعنيتان كذا تصحروا فإن في السحور بركة حوغا لا يهي وانزومي كرائي وما بهن ميا حكمة آدم أجيب بكجر ماشي waxaanan anagu garanayn iyo waxaan garanayna labadaba waa ku jira. saxuurta cuna ahlu kitaabka iyo annaga soonkeena waxa lagu kala fasliyo oo lagu kala bixiyo waa saxuurta cunitaankeeda ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam. wala saxuuranaya hadda wax badan u baahnayn wala xasaxaso ka basho biyo ah galaas caana ah koob caana ah koob casiir ah waxa doonto ku saxuuro una niyeysa dibna markaa u dhig. intaa waa waxa habeenka ramadaankana loogaga baahan yahay. intaa markaan sameeynay ka bacdi waxa la gaarayaa aroortii subaxii markii la gaaro saad shalay ahayd ha ahaane. akhlaaqdaadu hadday xumayd akhlaaqdaada wanaaji. nin qallabsan haddaad ahayd nin qiimo leh noqo. nin qiimo leh noqo. nin cay badan haddaad ahayd nin aamusan noqo. nin dadka dhiba haddaad ahayd nin ammaan laga helaya noqo. ilaa ramadaan baa dhashay. soon baa dhashay. shahar qiimo badan baa dhashay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam asagoo tilmaamaya ilaahina ka warinaya kullu amal ibn aadam amal kasto oo bani aadam uu sameesto asaa iskala illa soonka ma ahani fa innahu li wa ana ajzi bihi ana iskala ana abal marinaya. soonku waa gaashaan buu rasuulku raacsiiyay ama ila subhanahu wa ta'ala. soonku waa jun waa wiqaayo waa gaashaan. gaashaanku waa bahalka marka warmaha iyo seefaha lagu dagaalamayo la isaga dhigo. naarta la isaga dhigaa asagana macaasida la isaga dhigaa. macaasidana waa kaa xijaabaya oo waa kaa celina. naartana wiqaayu kaaga yahay. dhalinyaradu waa dadka ugu fitnada badan. intuu dul yimid buu rasuulku yiri yaa macshar ash-shabaab man istataa'a minkum al-baa'a falyatazawwaj. war dhalinyaroy kii kari kara ha guursado. waa xilliga ugu dhibka badan bay marayaan. waxa adduunka rogo waa ayaga. waxa macaasida badiya waa ayaga. haddii nin shaab ah uu ka badbaado oo taa'ib noqdo oo ku barbaaro cibaadada ilaahay waa axadka ilaahay u jecel yahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu ka mid yahay dadka raxmaanka carshigiisa loo hariyo. waayo xilli fitan badanoo shahwo badanoo dhibaato badan uu carcaraayo ayuu isqabtou ilaahay xakamiyey subxaanahu wa tacaala. idan abaalgud fiican buu leeyahay. sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi guurka indhuhu ilaaliyaa. farjigana waa ilaaliyaa. qofka aan kari karin oo aan soomi oo wuxuu ku guursado aan haysan muxuu samaynaa? saaxiib muu samaysana? muxuu samaynayaa? gashaati muu samaysanayaa? muxuu samaysanayaa? sadiiqad muu samaysanayaa? walaa muttakhidii akhdaan. saaxiib sideed ha yeelanina buu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala. facalayhi bisawm ha soomo. idan waa wiqaayo. soomku waa gaashaan. wuxuu gaashaan uga noqday macaasidii uu u guursan waayey oo ka badbaadaya. wuxuu ka badbaadinaya soonka. saasuu ilaahay nabigiisa tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. idan as-sawmu junna. soonku waa gaashaan. soonku wiqaayo naarta kaaga yahay. naartuu kaa gaashaaminaya. macaasiduu kaa celinaya. idan ku dadaala. saasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. intaa wixii ka dambeeya maalin ramadaan baan maraynaa. rasuulka ama ilaah asoo sii tilmaamaya ayuu yidhi axad adinka idinka mid ah haddii maalin uu sooman yahay uu soon u sugnaaday rafaq iyo fusuuq yuusan la imaanin. riwaayad kale sakhdi yuusan ku darin. buuq inuu suuqa ku buuqo inuu qayliyo. rafaq afxumo jimaac wixii keeni kara fisqi taaca ka bax diindiidnimo yuusan la imaanin. waa axad hadduu maalin sooman yahay. rafaq iyo fusuuq iyo suqbi intaba ha iska ilaaliyo. war mar allaala markaad soomantahay suuqa aad joogta isxakameyn.
dhibaataa dhici karta, waa lagu maagi karaa, mashaakil baa imaanaya, akhlaaq lahow. soonku waa madarasad laga soo baxo, waa jaamacad laga soo baxo. sababtu maxay tahay? hadigii is-ilaaliyey yaa laga yaabaa in lagu maago oo dushaada la yimaado. fain saabahu axad, haddii axad caayo ama uu la dagaalamo buu dhahay nebiga, hee maxaa la samaynayaa? waa ku caayey, waad sooman tahay, ama wuu kula dagaalamay, kitaabka maad u dhiganaysaa? waa maya. islaamtu ma dembiisha adeegay kuwaday dhiganaysaa? waa maya. falyaqul inii saa'im, ani waa soomanahay de. ujeedda akhlaaqda uu dadka baraayo, aadaabta soonka uu dadka baraayo, inay tahay jaamacad laga soo baxo, madaras laga soo qalin jabiyo, yuu soonku tilmaamayaa. sidaa darteed buu rasuulku yidhi, haddii axad caayo ama uu la dagaalamo, falyaqul inii imru'u saa'im, ani shaksi soomanaan ahay. walaalow idaa haya caayin, kaama itaal yari, igamana itaal badnid, igama xoog badnid, laakiin ani soon baa i xakamaynaya. ilaahay buu afkayga u xihan yahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay ayuu afkayga u xihan yahay. aniga oo طacaam iyo sharaab iyo wax lacaba ka soomay, dhoocil xun caydeeda ku afuri maayo. anigoo ka soomay wax walbo mataqaanaa xalaal ahaa, qof xuno i caayey aniga ku afuri maayo. walaa idaa, walaal faraha iga qaad. ini imru'u saa'im, ka dulqaadka ka weyn muxuu yahay walaalayaal? dulqaadka weyn ee axadka waxa ka weyn ee uu heli lahaa waa soonkuu ka bartay. soonkaa dadka xakameeya, soonkaa dadka aadaab u yeela, soonkaa dadka tarbiyeeya, soonkaa dadka qiime iyo wanaag u sameeya. haddii axadku caayo ama uu kula dagaalamo, dheh ani waa soomanahay walaal. war aniga ilaahay ayaa mataqaanaa afkaygu u xihan yahay. war aniga soonkaa aadaab i baray oo edab i baray oo sida dadka loo caayo iga reebay. inaan dagaalamo soonkaa ii diidan. wiqaaya, soonku waa wiqaayo, soonku waa gaashaan, soonku waa junne. intaasoo dhan buu kaa celinayaa. rasuulka intaa wuxuu raacsiiyey, waladii nafsii, macbuudka nafsadayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye, la khuluuqu fami saa'imi, saa'imka afkiisa karka ka soo baxa iyo urka. ilaan qofka markay baahida ka badato, mar uu wax badan aamuso, hadduu hurda ka soo kaco, waa taqayurmaa afkiisa. ummaddu wax ay necab yihiin waaye, lama jecla inta badan karka afkiisa ka soo baxaya. aطyab cinda allahi min riixi miski subxaanaه wa tacaala. riixda udgoon ee miskiga lagu magacaabo waxaa ka udgoon badan karka afkaaga ka soo baxaya. kawar waxyaabaha kale, urkii afkaaga ka soo baxa alla wuxuu kugu ballan qaaday oo mataqaana kugu abaalmariyey riixda miskiga inay ka udug badato. soonkaagii ka waran, cibaadadaadii xagguu ku jiraa, akhlaaqdaadii aaway, kulli min baabi awlaa. saa darteed baa qofka sooman waxa afkiisa ka soo baxaya alla agtiisa ay uga udgoon badan tahay riixda miskiga ah. lisaa'imi farxataan, ninka saa'imkaa laba farxadood buu leeyahay. laba mar ayuu farxaa. marka koowaad waa marka la afuraayo. marka la afurayo oo cuntadii xaaraanta ka ahayd oo loo diiday, haraadkii haayey, baahidii baa u fasaxantay. waa quruub shamsi marka la gaaro. marka cadceeddu ay dhacdo, mu'adinka salaada maqribka uu aadaamayo, raashinkii waa u furmay. ma biyo la cabe iyo soor la cuno ku farxayaa? maya, xikmad kale ku jirta. muxuu ku farxayaa? waayahe wuxuu ku farxayaa waajibkii ilaahiga ahaa ee uu gutay subxaana wa tacaala. wuxuu ku farxayaa amarkii allah uu fuliyey. baaha baa la yidhi, waa baahday. gaajo ku sugnoo baa la yidhi, waa ku sugnaaday. xaaskaaga dhinacaaga jeefta ha u dhowaan baa la yidhi, nahaar ramadaan waa fuliyey. waktigii waa dhammaado, wixii laga diiday oo dhan ilaahay waa u fasaxay, ajirna waa helay subxaana wa tacaala agtiisa. taasuu ku farxayaa. ee sambuus la cuno ku farxi maayo, raashin la cuno ku farxi maayo, beriis la cuno ku farxi maayo. ilan 11 bilood buu cunaayey, 11 bilood yuu cunitaan iyo cabitaan ku jiray. laakiin farxadda meesha ku jirta waa farxad cajaa'ib leh. kii aan soomin ma soome, asoo meesha joogaa maantao dhan waa cunaayey, wuu cabaayey. xataa qiimo darada dadaa wax badan cuninoo qaad iyo sigaar un cabaa iyo koob shaaha. xataa hadduu wax fiican cuni lahaa, xataa haddii uu raashin wanaagsan cuni lahaa, waa qaad iyo sigaar iyo koob shaah ah oo digaysa xataa aan caddays ahayn. saa darteed maantao dhanoo meesha fadhiyey, meeshaasuu joogay, amarkii ilaahay waa diiday, shaydaan buu raacay, soonkii ma soomin. qofkii kala soomayna wax dhibaatoo gaaray ma laha, asagana wax u siyaaday ma laha. kan ajir buuba helayba. saasuu ku farxaya. waa farxadda koobaad. farxadda labaad, cinda liqaa rabbi, waa markuu rabbi hortaagan yahay subxaana wa tacaala. boqorkuu shaqada u qabtay buu hortaagan yahay. muxuu sugayaa?
mujarab muxuu sugayaa abaalgud ninka aan dhahno meel yar noo sameeyo noo dhisa ma dukaanka waxaad noogu samaysaa naqshad mar allaaba markuu dhamayo ku hortaagayn wuu farxayaa maxaa la siinayaa 10 kun ama 15 kun ilaa 20 gaarsii soo uu farxayo kaalay arag ka waran qofka rabbul izza hortaagan maalinta subhanahu wa ta'ala wasawirta walaalayaal ilaahay baad hortaagan tahay abaal buu rabaa inuu ku siiyo subhanahu wa ta'ala inuu ku abaalgudo rabaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabaa in wixii aad qabatay abaalkeeda uu ku siiyo lisaa'imi farxatan laba mar buu farxaya waa marka uu ilaahay la kulmo subhanahu wa ta'ala oo ajirkiisa la siinayo iyo marka uu afurayo labada xaaladda afurka waxa lagu fasiraa oo kale maalinta ciida oo soonku dhamaado soddonkii buu dhameeyay markaasuu ciid u dareerayaa ilaahay baa ku hanuuniyay xaaladaasay noqotaba ninka saa'imka maalinta uu ilaahay hortaagan yahay abaalgud buu leeyahay rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam jannada waxa ku taale albaab lagu magacaabo rayaan albaabkii dhargsanaanta wa albaabkii on la'aanta wa cukanaanta waxa ka gala saa'imiin kaliya inta saa'imiin oo soonta albaabkaabay ka galaan buu dhahay nabiga waxa loo oranayaa maalinta qiyaamo ayna as-saa'imuun ayna as-saa'imuun saasa loo wada fadhiyaa makhluuqaadkii oo dhan aaway saa'imiintii war aaway dadkii soomaayay wa ayna as-saa'imuun saa'imiintii aaway way soo istaagayaan in allaala intii saa'imiin ahayd dadka way ka soo dhex baxayaan was-saa'imiina was-saa'imaat wiilasha soonka badan iyo gabdhaha soonka badan wiilashii soonka badnaa aaway gabdhihii soonka badnaa aaway ka soo dhex baxa ummadda waxay ka gelayaan albaabka rayaan waa kii soonka waa kii dharagsanaanta waa kii haraad la'aanta in badan baad soonteenood haraadeene haraad waa idin dhammaaday galaa la leeyahay ninka ugu dambeeya markuu galo uguliq waa la xirayaa buu dhahay nabiga sal allahu alayh wasalam waa ninka ugu dambeeya saa'im ah intuu bannaan taagan la xiri maayo maalintuu saa ugu talaabsado albaabkaa la xiraa axad kale oo ka gelaya ma jiro ma soome bannaankuu taagan yahay ma soomte bannaankay taagan tahay soon marka la dhaho gaas baa igu kacay sooma wadnaha laga qabtaa saan waayo xaaladda walaalayaal cibaadada haddaan jecelnahay cibaadada haddaan rabna inaan si fiican u xoojino waa fulin karnaa inta badan ramadaanka su'aalaha dadka ay weydiiyaan culimada maxaa ka mid ah soom baa soo dhawe ma soomi kari soom baa soo dhawe waxaan leeyahay sokor soom baa soo dhawe dhiikoor baan qabaa bal soomba intaasuu ilaahay kugu caafiya subxaanahu wa tacaala inkastoo axadka mariidkaasaan tilmaami doona la cafiyey haddana haddaad kari weyso waa mawduuc kale soonkiyo 7 beri ka dhiman buu leeyahay ma soomi kari cudur baan qabaa bal galba marka hore bilow bal marka hore soomba oo soonkii niyeysa bal intaasuu ilaahay kugu caafiyo axaadiis walow la daciifiyo waxay tilmaamayaan suumuu tasixu sooma waad caafimaadaysaane xaqiiqda marka la firiyo waa caafimaad soonka caafimaad buu leeyahay iska daa intaan ukhrawi iyo aakhiro la tegin adduunkaad ku caafimaadaysaa 11 bilood buu mashiinkaagu shaqaynayay wuu nasanayaa waa la nasinayaa ilaahay xikmadaha uu cibaadada u jideynaya laftigeeda khayr iyo wanaag bay tahay khayr iyo cizi iyo karaama laga helaa wax walba oo cibaado ah ummadda caafimaad baa ugu jira dhaqaatiirta qaar kamid waxay dhaheen sandaarsiga baalka lagu magacaabo rasuulku uu yidhi sandaarsada qofka ama gaalada intooda badan malaxdaa sanka dusha ka gala markay weynaadaan waxa daawo ah sandaarsiga wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'iman haddaad soo toostaan sandaarsada shaydaanka wuxuu baryaabuu rasuulku yidhi khashoonkiisan qaroorka qofkeen cadaawanimo meeluu ka gaaray saa darteed walaalayaal waxaa loo baahan yahay in soonka la ixtiraamo maalintaa marka la sooman yahay saasuu ilaahay ummadda ugu talagalay man saama ramadaana qofkii ramadaan sooma iimaanan wa ixtisaaban laba sifa u sooma waa rumayn uu rumaysan yahay iyo ajir xisaabsasho waxaa loo dhaafaa dembigiisa wixii tegey buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam dembi wixii tegey waa soon uma soomin hiddo iyo dhaqan maxaad u soontay awowgii baa soomin jiray ma aha waa iimaan ta labaadna waa ixtisaab maanta haddii aroortii inta quraacda lagaa baahiyo aad dukaankaaga tagto oo maalintaasoo dhan aad wax cunin haddana zabaa'in badan kuu yimaado ama kastan badan saad wax uga iibinaysay aad weyse xilli aad ku qadayso saad u socotay haddana aad soo xirtoo maqribka la gaaro ajir ma lihid
sababtu maxay tahay waxaad weysay waqti aad wax ku cunto laakiin markaad ixtisaabsato markaad ajir xisaabsato markaad ogaato ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waxaan ku amray qalbigaaga ay ku jirto dembigaaga lagaaga dhaafayaa cibaadayna markaa kuu noqonaysaa cibaaday markaa kuu ahaanaysaa haddaba walaalayaal soonku xaaladiisu waa sidaa qiimaha kale uu leeyahy waxaa ka mid ah inuu rasuulku yidhi haddii ramadaan yimaado futixat abwaabu samaa samada albaabahooda la furfuraa riwaayad kale abwaabu ljanna jannada albaabahooda hal la xiraayo ma jiro dhammaan way furan yihiin albaabaha naarta oo dhanna waa la xirxirayaa buu dhahay rasuulka sal alla alayh wasalam shayaaiintana waa la katiinaynayaa dhammaan waa la xirxirayaa wasifadat shayaaiin shayaaiinta dhammaan jeel baa lagu aruuriyaa waqtigii la xiraayaa soo dhow shaydaanku waana dhibay macaasiyuu nagu dilaysaday mashaakil badan buu nagu sameeyey salaadii subaxaan uga ka cila'nahay saasuu noo hayaa haddaan soo kacnaa salaad fiican uusan na tujinaynin uusan noo saamaxayn dhibkii kii nagu haayay walaalayaal 11 bilood nagu dul socday xarig aan ugu xirxirnayn baa la xirayaa ka war maxaa nala gudboon marka fafiruu ila allah ilaahay xaggiisii loo cararo subxaana wa tacaala war kii wuu xiraya malcuunka dhowr habeen 3 habeen ama 2 habeen kadib waa la xirayaa oo jeel baa la dhigayaa aawe dadkii shaydaan baa dhiba shaydaan baa saa iyo la dhahay waa leedinka xiraya ilaahay masaajidadiisa soo gala dibnaha uga bixina ilaahay taacadiisa u imaada banaankana ha aadina mar kale khayrka iyo wanaagga ku dadaala xaaladaasuu tilmaamayaa hal albaab oo albaabaha naarta oo furan ma laha ramadaanka hal albaab oo albaabaha jannada ka mida oo xiranna ma laha maxaa la sugaa marka albaabihii jannadana loo furfuray kuwii naartana loo xirxiray shaydaankii naarta noo waday jannadana noo diidanaana xabsi la dhigay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa walaalayaal soonka qiimo fara badan ayuu leeyahay xikmadaha soonka ku jira mid haddaanu ka tilmaanno waxaa ka mid ah inaan ogaano dad fara badan oo baahan inay jiraan waa xikmadda ugu cajaa'ibta badan ee soonka loo jideeyey waxaa ka mid ah maalinta ramadaanka laga bilaabo qoraxda soo bixitaankeeda dhalashada fajarka ilaa guruubi shamsi laga gaaro yaa cuntada iyo cabitaanka lagu diiday waa keliya waa 12 saacadood haddii laga bixiyo wadamada qayb ka mida wax u siyaadaya waxaa laguu diiday waxaad cuntii waxaad cabto allahu akbar markuu yidhaahdo mu'adinka waa kuu bilaabanaysaa waxaad ogaataa walaal inay jiraan dad maalintii oo dhan aan wax cunin habeenkiina ugu darsan maalinta ku xigtana ay ugu sii jirto maalinta kalena ay usii raacsiisan tahay ta afaraadna uusan ogeyn meel wax ka helaayo tawaal nahaar ama tawaal ayaam badan qof baahan inuu markaa jiro qof aan wax heli karin inuu jiro khaasatan dad muslimiina inay jiraan oo aan wax heli karin ay cunaan iyo waxay cabaan baahi waxay tahay baa lagu barayaa dadka tukaamadaha lahow dadka meheradaha ay u furan yihiino dadka aan weligood gaajooninoo wax loo nimceeyayo dadka gobol ka mida laga yaabaa inay gaajo la yaabaanba gaajo maxay tahayba sidii gabadhii boqorka dhalee la sheegayay ee gaari faraska intay soo raacday wiil meesha intuu ku dhacay oo saa loogu xunsan yahay dadku ay ku wareegsiin bay dul timid oo maxaa ku dhacay wiilka wuu baahan yahay oo gaajaa riday muu bariis cuna bay tiri muu bariis cuna waaya macnaha dadka gobol ka mid ah ayaa xaaladooda waxay tahayba arrin cajiib badan saa darteed baa qofka muslimkaa taraxum naxariis ayaa lagu abuurayaa waxaa la barayaa baahi inay jirto waxaa la barayaa dad noocaasa inay jiraan daraad iyo maalmo dhoweed waan u jeednaa dhibaatadii dadka ku dhacday muslimiinta say u gurmadeen maxay ku ogaadeen waxay ku ogaadeen ramadaanka maalintii 12 saacadood yaa la yidhi baaho markaasaa casirka marka la gaaro tallaabadan qaadi karin tallaaba ma qaadi kartid gabdhaha gobol ka mid ah koob ma dhaqi karaan koobka marka saga casirka la gaaro iska daa wax kale ka waran qofka maalin kasta baahan qofka maalin walba dhibaatada ku jira haraadka ku jira rafaadka ku jira haddana colaada ugu sii darsantay waa ka sii daran tahay walaalayaal waxa la rabaa in la ogaado xaaladda miskiin waxa uu yahay inaad ogaato waxyaabaha lagu tilmaamay yuusuf calayhi salaam maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray maxaa u yeeshay baa la yidhi khazaa'inta masar oo dhan buu gacanta ku hayaa raashin uusan saxiixin lama cuno raashin asaga oo amarkiisa uusan ku soo bixin lama bixiyo maxaa u soomaysaa markaasuu maalin waxaan jeclahay inaan dhargo oon ilaahay xasuusto subxaana wa tacaala oon ku shukriyo maalin inaan gaajoodon ilaahay u sabro subxaana wa tacaala oo aan ogaada gaajada waxa ay tahay waa cajiib
waa arrin muhiim ah, waa arrinna laka raba walaalayaal. saa darteed inaan danqano waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mid ah masaakiinta baahan oo tacaam la siiyo, xataa lacagta tacaamka uga qiimo badan. in badan buu qur'aanku tacaamka ku soo celceliyaa. cabdullaahi ibnu salaam mar allaala markii nebiga magaalada madiine uu soo galay, khudbadii ugu horaysay aan ka maqlay waxaa ka mid ahaa buu yidhi, ayuha annaas adcimu acaam, tacaamka masaakiinta siiya, raashin siiya. baahida waa dhibaato walaalayaal, baahida way adag tahay. rasuulku wuxuu dhihi jiray, allaahumma inii acuudu bika min aljuuc, ilaahu baahi baan kaa magan galay. waayo wax loo jiifta aydaa ugu xun, wax loo jiifta aydaa ugu xun. aabba haddaa toobiil laga sugaya ka hor aada shinaynin, maxaa samaynaysaa? hooyo aysan waxaynin, gurigaad isaga soo baxaysaa soo maaha. hooyay leeyihin ciyaalkii baahayaan haysa, hooyo juuc, waxay siisa ma laha. shandadeeda kuma jiro 100 shilin ay wax siiso, kuma jiro waxay rooti ugu soo iibiso. hooyo gaaja ay haysa, baahi ma sahlana walaalayaal. ilaa ilaahay uu yidhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba. waa arrin cajiib badan. jannada xaggaasay ku taallaa, buur baa idinka sokaysee buurta intaad jiirtaan galabuu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. caqabadu maxay tahay? buurta maxay tahay? ma buur helicopter lagu koraya iyo cagaf? waa maya. falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba waa faku raqaba, qoor la fakiya buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. addoon la addoonsanayo oo la xoreeyo. aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba, amase in la quudiyo maalin baahi ay jirto. maalinta baahida ay jirto walaalayaal maalin dhibaato badan waay. maalinta baahida ninkii kaa carara, maalinta baahida ninkii kaa jeestaa, maalin calooshaadu aynan waxba ku jirin oo dhibaataysan tahay, qofka kaa cararaa waa qof cajiib badan, waa qofku dilay. saa darteed buu ilaah yidhi aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba. maxaa ku xiga? yatiiman daa maqraba, yatiim agoon u saaxiiba dhawaasho, qaraabo u saaxiiba, waa qaraabaad tihiin. agoontu dadka loo naxariistay ugu badan yihiin. aabbihii buu waayey isagoo yar, aabbihiisaa ka dhintay. ummadda iyo ciyaalka kale markay aabbahood la ciidayaan, aabbihii ma haysta asaga. idan markaasuu ilaah yidhi yatiiman daa maqraba. maxaa ku xiga? aw miskiinan daa matraba, maskiin bacajiif u saaxiib ah. daa matraba maxaa loo yidhi? ushiisii asagoo wato socdaa yuu kari waayey tallaabo markuu qaaday ta kale inuu qaado, baahi daraaddeed. waayo wuxuu dhabarkiisa ku istaajin lahaa ma laha, ilajigii iyo awooddii wuxuu lahaabaa dhammaaday. markaasuu faniino dhulka ku dhacay. daa matraba, jiifkii uu jiifay bacaadka yuu ilaah yidhi ow miskiinan daa matraba, bacaadjiif u saaxiib ah. waa xikmadda ugu cajaa'ibta badan walaalayaal. waa arrinta la rabo markaan maqalno qof baa baahan, qof intuu meesha istaaga yidhaahda shalay maanan qabaynin, hadal yar ma aha walaalayaal, wax sahlan ma aha. idan xikmadaha soonkay ka mid tahay. intaa ka bacdi ramadaanka marka saa ilaahay noo geliyo oo khayrka iyo wanaagga ilaahayna gaarsiiyo oo ilaahay soonkiina waafajiyo, waxaa jira dad fara badan oo soonka laga dhaafaayo. intaanan u gelin shuruud baa jirta lagu soomo. shuruudda lagu soomo ko waa islaamnimo, qofka inuu islaam ahaado. gaal haddaad aragto meesha maqaayad wax ku cunaayo, war ka kaca meesha muxuu cunto dhaafaaba? ilaahayba ma aaminsana subxaana wa tacaala, ilaahayba maba rumaysna. marka saa darteed shardiga koowaad waa alislaam, qofki inuu islaam ahaado. gaal kuma jiro. maxaa soo haray? qofki inuu caaqil ahaado. ninka majnuunkaa kuma jiro. nin waalano meesha tufaax ku cunaya markaad aragto alla soonsoo may, ilaah baa ka rafacay subxaana wa tacaala. qalinkii waaba laga kor qaaday, malaa'igtiis waxmaba qortaba ilaa uu fiq ka helo u caafimaado. yaa soo haray waa qofka inuu ahaado qof buluuq ah, qaangaar. ciyaalka yaryarkaa kuma jiraan. ciyaalka yaryarkaa soon lagama rabo, laakiin waa la iska soomin karaa, way ka caada dhiganayaan. marka maanta inta la soomiyey subaxii, duurka markuu ooyo dhooy aniga intaan ka badan ma soomi karin, waa la siinayaa caanihiis, dhibaato kuma jiro. waayo beriti la casri buu gaaraya soo maha, maalinta kale ilaa 5 buu gaaraya. maalin sida uu isaga furfurayo maalinta kale maqribkiila laga aadaamo waa soomayaa. waa ictaad, waa looga caada dhigayaa keliya, laakiin soonku ma waajibo. intaa waa dadka soonka ku waajibaya. qofku hadduu xanuunsan yahay ama musaafir uu yahayna waa dadka la cafiyey. dumarka waxaa loo shardiyaa intaa ka badan, intaa wixii ka soo haray dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska. waa 2 dhiigood, waa laba dhiigood, dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska. labada laguma soomo. labadaas ee mtaqaanaa dhiig waa dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaskee, labadaba waa ka mamnuuc inay ku soomaan. sababtu waxay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, alaysat ilmar'a, inantu sow ma aha hadday xaysho ama dhiigga nifaaska uu ku dhaco
midaan soomin oo tukan buu dhahay nebiga soonka way soo qadaynayaan laakiin salaada ma la soo qadaynayo xaaladda markay meeshaa marayso walaalayaal oo arrinta ay heerkaa gaarsiisan tahay intaa shuruudna qofka laga helo soonkii baa u bilaabanaya wuu soomayaa waxaa jira soonka waxyaabo fara badan oo dhibaato aan u lahayn waxyaabo soonka jebiya waajibaad iyo axkaam intaba waa leeyahay axkaamihii qayb ka mida baanu ku soo tilmaanno dhalashadii iyo inay bisha dhalato iyo waxyaabahaasoo dhan axkaam loo baahan yahay soonka marka maalintii la joogo qofka waxaa ka mamnuuca cunitaanka iyo cabitaanka camdiga ah kibirka loo sameeyo adoo og baad wax cuntay adoo og baad wax cabtay labada waa mamnuuc soonku wuu kaa jarayaa sidaa darteed waxaa meesha ka baxaya qofkii naasi ah oo ilowsan waad hilmaantay waad cuntay waad cabtay soonkaaga iska wado waa raxmadda ilaah subxaana wa tacaala naxariista ilaahay waxaa ka mida haddaad ilowdo soon adoo sooman oo aad cunto oo aad cabto soonkaaga waa wadanaysaa qadana lagaama rabo kafaara gudna lagaama rabo waxba soonkaaga dhammaystiro sidaadaad ka soconaysaa ilaahay baa ku quudiyo ku waraabiyey laakiin markaad xasuusato ha sii dejinin waa inaad joojisaa markaad xusuusato waad istaajinaysaa cunitaanka iyo cabitaanka xaaladda waa sidaa waxa soonka jebiya oo ka mid ah baa la yidhi matagga qofka kibirka isaga keena jebaya hadduu soo dhaafasa dhib male laysa calaykum ilaah wuxuu tilmaamayaa ilaahay laysa calaykum junaaxun fiima akhda'tum bih walaakin ma tacammadat quluubukum taasuu ilaah idin qabsanaya subxaana wa tacaala nahaar ramadaan waxaa ummadda wiil iyo gabar isqaba ka mamnuuca mucaamalaadka bilooyinka kala dhex mara waa ka mamnuuc soonka waa jebinayaa sidaa darteed ayaa markii hore walaalayaa diinteenna islaamka waxay noqotay diin sadxe oo sahlan waxay ahaan jirtay markii hore qofka haddii maqribka la adimo hadduu seexdo u hurdo soonka waa u xirnaa jiray haddii cishaa'iga la tukadana soonka markaasuu bilaaban jiray naagna looma dhowaanayo cuntona lama cunayo sharaabna ma la cabaayo xaalku markuu meeshaa maraayay yaa nin maantao dhan intuu beer ka shaqaynaya reer madiina waa beeraley mausuu beer timira uga shaqaynayay uuna soonnaa yuu gurigiisii yimid xaaskiisii buu ku yidhi haye afar ma haysaa wax ma yaale waa kuu soo daydayaaya kastoo sug bay tiri intay boorashkii mishaaryadii ugu maqnayd yuu hurday ile maantao dhan buu shaqaynaya miskiinka markay saa albaabka usoo gashay ayadoo waday tiri khibta wallahi waad hoogtay waa soonka u xihan yahay waa dhammaatay ma cuni karo ceshihii kadib markii la tukadayna qolo dumarkoodii bay u taraaraxeen ayagana waa naftoodii ku qarsanayeen intaa ka bacdi baa maalintii markii la gaaray ninkii sidii ku dhacday duurkii markii la gaaro shaqo wadi waay wuu suuxay ilaahay baa ka nasaqay uxilla lakum laylat الصiyaam alrafafu ilى nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna saasaa lagu soo dejiyey ka warrama waa ilaahay naxariistiisa war ilaad ka dhimataan sooma mana dhihin subxaana wa tacaala war ilaa aad ka soxsoxdaan soomana ma dhihin subxaana wa tacaala uxilla lakum waxaa laidiin baneeyey habeenka siyaamka rafad waa gaarid aad dumarkiina gaartaan الرفث إلى نسائكم وأيهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلهي وهو أقارب حالنا نفيالكين قيانتين فتاب عليكم وإذن كصلاة وعفى عنكم وإذن كعفية فالآن هذا صوماها باشروهن وارضاه وتقدمك نبونا إلى سبحانه وتعالى فصح ذاتهم مقربك مركز إذا لو أدموا إلا فجرك لك جاره يقول بنانتها فالآن باشروهن هدرتان أتقبوا إلى سبحانه وتعالى مع اللغة تقيا وابتغوا ما كتب الله لكم وحي إلهي إليك كقري كالرسالة مع إلهنا وقري وأولاد ووحي إلهي كوقري وحي تقرك داوي معها ووحي إلهي كوقري معها وحلنا بيا رحلكم بجري هلا قطاضي أما أنت لقي إسلامتي وحبوك جرتي تعالي هذا أم سبيان بقبطيها لكم وانت سودم نقول جي معها هدرتان أتقبوا إلهي وابتغوا ما كتب الله لكم وحي إلهي إذن كقري كالرسالة كلوا واشربوا عنا عبء شرابكين إيو راشنكين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلا الله بضى ليلين إكلا عدادان أو الصبحة الله بصبح باجة مدنا وكاذبه وصبحونا بعضها يجي السين كذا كانوا إجيهاي مدنا وفراء أفق وكب الأرطاب وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله بضى إكلا عدادان أو فجر كأ هدي الليل كالعلبات أما فجر كالعلبات ونشوا ثم أتم الصيام إلى الليل إلا مغرب كلا يجارسون كوضع الله سبحانه وتعالى مركنا حريصك إلهي تاسع كمئة إذا ماشي وحن كأرقنا الجماعة وحكمية وحيابها مفترات كيسون كجريان هذا بعد النهار رمضان أحد كأنه قلمات صميو
xaaskiisu u galmoodo soonku wuu ka jabayaa. waa koow. maalintaas wax ma cunaayo 3 sac subax hadday ahayd aad galmood samayso ilaa maqribka afka wax masaaraysid mana soonid waxna ma cuni kartid. waa labo. ta kale maxaa laga rabaa oo kale inuu maalintaas soo qadeeyo. maalintaana waad soo gudaysaa. tawba waa loo baahan yahay ayada laftigeeda ilaa dembi baad ku dhacday. midda kale lagugu darayo waxay tahay ganaax. waa lagu ganaaxayaa oo waxaa korkaaga la saarayaa kafaara gud. waayo nin sooman baa tahee maxaa xaas ku dhaweeyey? nin sooman baa tahee maad masaajidka timaadid bas qur'aan akhrisatid oo diinta ilaahay waxyaabo mutaqaana ka baratid. xaaladda noocaasa waxaa la tilmaamayaa marka kafaara gud in korka lagaa saaro. koo waa inaad addoon xoraysa haddii la heli karo. haddii la waayo waa inaad soontaa shahrayn mutataabicayn 2 bilood oo xiriir ah 45 maalmood. haddaad soontood maalin afarto koobaad ka soo bilaabaysaa. koobaad ka soo bilaabaysaa ilaa hadduu cudur jiro ma ahani. haddaad xanuun kuu yimaado oo cudur yimaado waa mawduuc gooni ah. ilaa soonkii waajibkaabaa la yidhi qofkaa iska cunaya iska cabo hadduu jiran yahay waa mawduuc kale waad sii wadan kartaa. laakiin haddaad cudurdaar la-aan afurto waad soo bilaabaysaa. waa 2 bilood oo xiriir waa 60 yowm maalin waa 60 maalmood. haddii la keri waayana 60 masaakiina ayaad raashin siinaysaa. intaabuu qofku ku badbaadi karaa. nabigaa nin u yimid sal alla alayh wasalam muxuu yidhi halagtu yaa rasuul allah rasuulka alla waan halaagsamay. maxaa ku halaajiyey buu dhahay nebiga. naagtaydii baan ku dhacay ayadoo nahaar ramadaana ay tahay. subxaanaka yaa ilaahay. naagtaydii baan jimaacay waana nahaar kaaga daran waa ramadaan haddana waana halaagsamay. muxuu u yidhi saxaabadda dembiga halaag bay u arki jireen walaalayaal. annaga sharaf baan u aragnaa waa ku qosolnaa. waa jeclaan lahayn anigoo dembi ku jirna t v inala ka duub sooma. waa jeclaan lahayn jaraa'idada inala ku soo qoro. halaag buu u arkaa. waan gubtay waan halaagsamay rasuulka ilaahayow dhibaata igu habsatay waa walwalayaa dhibaato u arkaa. waa la qoslaa maanta waa lagu faraxsan yahay maanta. sidaa darteed ayuu yidhi rasuulka maxaa ku halaajiyey? xaaskaygaan ku dhacay ayadoo ramadaan nahaara ay tahay. waayahe waa la xalinayaa. diinta waxbay xalisaa. diinteena maaha diin macangag ah. maaha diin madax adag. maaha diin qofka mar allaala markuu qalab ku dhaco khalaas uu baaba'ay. xal bay keentaa. waa diinta keliya wax xalisa. waa diinta keliya xalkeeda ay uu ballaaran yahay waasicna uu yahay. waayahee ma heli kartaa qoor aad fakiso? maya wadaay tayda un waxaan ahaynoon hanan kara malaha. haye ma awoodi kartaa inaad 2 bilood oo xiriira soonto? maya buu dhahay rasuulka ilaahayo ma kari karo. haye ma awoodi kartaa 60 masaakiina inaad quudiso raashin siisa? maya buu dhahay rasuulka ilaahayo. mashaakil waxna lama haysto. diintiina aad baa loogu dhegan yahay. khayrkii wanaaggaa lagu dadaala. qalad yar markuu ka dhaco rasuulkaa loo soo ordaya sala allahu calayh wasalam. cilaaj baa la raadinaa. daawaa la raadinaa. intaa naaraa laga cabsanayaa jannaa la rajaynayaa. intaa saqad allah laga cabsanaa raadiyaasha ilaah baa la rajaynayaa. intaa waxaa laga cabsanayaa inuu ilaahay naco oo jeceyl ilahay baa la raadinaya subxaanahu wa tacaala. wuu iska fadhiistay. nasiib wanaag dembiil baa loo keenay rasuulka ay timri ku jirto oo 60kii maskiin qaadi kartaa. aawakii waay kanaa kii halaagsanay qaadadaa la yidhi sii masaakiinta. markuu sa u qabto kor u qaada buu dhaha yaa rasuul yaa siiyaa yaa iiga baahi badan ba. 2 laabatay 2 buurood ee madiina ku wareegsan buu yidhi ahlu beyt gurigeyga iiga baahi badan mid maba la quraacanba maanta mana la qabin maxaa siiyaa buu dhahay dadka rasuulka ilaahayo. fadaxika nabiy rasuulku waa ku qoslay sal alla alayh wasalam ilaa goosiisii la arkay. waahii orod buu yidhi ciyaalkiisii. marka xaaladdaa waxaa laga fahmayaa meesha axadka ramadaan nahaar inuu is-ilaaliyo khaasatan dadka arooskooda cusub yahay khaasatan dhallinyarada. waayo xadiis baa tilmaamay sida la tilmaamay nin baa u yimid nebigu yidhi ma dhunkan karaa xaaskayga? uu yidhi haa. ku kalaa yimid oo yidhi ma dhunkan karaa? uu yidhi may. maxaa kana loogu diiday kana loogu ogolaaday? kani waxaa la yidhi waa shay waa oday si kastoo dhunkan waxa maaha kan. laakiin waa dhallinyaro wuu taraaraxayaa. laakiin mar walba walaalayaal dhallinyaranimo iyo gabow kuma xirna. waxay ku xihan tahay amlig qofkiinu is-celin karaa isaga. waayo caaisha waxay tidhi nebiga waa ishuminaya wahwa saa'im. waa idhunkan jiray asagoo sooman. waa igu mubaashirin jiray wahwa saa'im. laakiin amlak buu ahaa nin hanasho badan irbadiisa iyo shahwaadkiisa iyo dantiisa mid ka adag buu ahaa. ayadoo ammaanaysa rasuulkay tihi ayukum milu yaa asoo kale noqon kara. war yaa rag ahoo idinka midoo nebi moxamed noqon kara oo kale sala allahu calayhi wasalam? maya ma jiro. aad bay u ammaanaysaa caaisha markay leedahay yaa idinka asagoo kale idinka midoo asoo kale noqon kara. marka waxay ku xihan tahay amlig qofki inuu ishanan karo. xataa fuqahada gobol ay yidhaahdeen nin shayb oo dhallinyaro ah ayaa laga yaabaa shayb inuu ka daran yahay.
odayga inuu ka darnaado oo iscelin waayo waa suuragal marka kuma xirno dhallinyaranimo iyo waxee mar kasta waxay ku xihan tahay waayo dhallinyaraha waxaa loogu leexiyey waa xilli aad iyo aad ugu dhibaato badan yahay baayi oona uu qabo xaaladaasaa markaa loola jeedaa idan qofka muslimka ah waa inuu sidaa ogaado nahaar ramadaan ha laga fogaado dumarka war qof allaala qofka aan iscelin karinow isaga soo bax oo masaajidada imow intay wax ka samaysanayaan afuradoodii waxooda si aynan dhibaato markaa kuu asiibin taas wax loo baahan yahay waaye intaa wixii ka dambeeya walaalayaal maalintaa oo dhan marka saa loo soo naado waxaa la gaarayaa xilligii afurka xilliga afurka marka la gaaro waa inaan ogaano inay tahay xilliga ilaahay ducada u ajiibo weliba qofka saa'imka ah maalinta ayaan la moogaani war waktigaa waxaa lagu haayo il gaar ah ha lagu feejignaada xilliga noocaasa gacmaha kor inta loo taago walaalayaal ilaahay ha la baryo inuu islaamka ilaahay guuleeyo inuu islaamka ilaahay ka sara u qaado in ilaahay soonkaaga aqbalo in badan ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu naxariisto khayr iyo wanaag inaad hesho waa in aad yaa loo baryaa ilaahay subxaana wa tacaala waayo saa'imka ducadiisa xilliga iftaarka ilahay ma soo celiyo subxaana wa tacaala waa lagaa ajiibayaa laa shakka in shaa allah laakiin la beegsa adigana la beegsa xilliga noocaas ah bannaankaasaa la taaganya dukaamada albaabkooda allahu akbar baa la sugaya markaasaa lasoo kala cararaya maya soo xaro marka hore ama se aqalkaagii afurkaaga agtiisa fadhi oo in badan la fiirso ducada ilaah subxaana wa tacala aad baryayso ilaahay saa'imka ducadiisa waa ajiibaa war qofka saa'imkaoo maalintahay wakhtiyadaa ilaahay xoog u bari ilaahay khayr adduuniya mid aakhiro weydiiso gurigaaga inuu ilaahay kuu barakeeyo carruurtaadii xaaskaaga inuu ilaahay kuu barakeeyo diinta inuu ilaahay kugu sugo xaqa iyo wanaagga inuu ilaahay ku waafajiyo shar iyo shaytaan inuu kaa qabto kurbada iyo murugta ku haysaa kurbafayda waa ilaahaye inuu ilaahay kurbada kaa qaado bari subxaana wa tacaala waa xilliga iftaarka walaalayaal wax badan baana dhaafaye middan haddii ilaahna gaarsiiye aan ka faa'iidaysano marka xaalka meesha la gaaro waxaad ku afuraysaa timir waxaad ku afuraysaa biyo labadu ay kuu bannaan tahay dhibaatadana haysata laakiin shahru ramadaan waxaan u naqaanaa shahru طacaam bishii طacaamka dukaamada albaabahooda tag bur dhammaaday bariis dhammaaday saliid dhammaatay kulli meeshaa la wada keenayaa haba la iibsada dhibaato ma laha walaalayaal gabadhii la qabay xaaska ahayd tii la dhalay tii qadaamada ahaydee shaqaynaysay duhurkiisay u galaan kushiinka waxay ka baxaan waa loogu dul adimaa waa lagu dul adimayaa kan dub ka sameey kan waxay kan inta ka bixi kan waxay ilaa salaada maqribka laga aadimo gobolka mid ah cishaa'iga markay tugtaan bay dib ugu laabtaan madbaha ama kushiinka haba la samaysta dhib ma laha mar allaala marka saa loo soo dhigo axadka xabad timiro qaato wax yaro biyo u cabanaa khalaas saa dhammaadayba ma dhaqaajin karo maxaa miskiinta maantao dhan dabka iyo dhibaatada loogu dilahay in yar oo taraawiix lagu tukan karo in yar oo dhabarka inta lagu istaajiyo ayaa habbooneed inteeda kalena qur'aankeeda ay akhrisato waayo shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan waa bishii qur'aanka waa bishii qur'aanka asnaaf tacaam oo dhan baa la samaynayaa wax walbaa meesha lasoo dhigayaa min hina ilaa hina baa lasoo dhigayaa maca daalika laba xabbaa laga qaadanayaa waa laga tegey war bisha ayadaa bil iimaan ah bisha waa bil qofka iimaankiisu u sugan yahay in yar haddaad cunto way ku kaafinaysaa ee dumarka yaan la dhibin walaalayaal gabdhaha khadaamooyinka yaan la dhibin gabdhaha la dhalayna yaan la dhibin waxa qiimaha badan waa cibaadada waxa ugu fiican waa cibaadoo la qabtay wax la cuno ma aha haddii cunitaan iyo cabitaan wax taraayo 11 bilood baan cunaynay 11 bilood oo aan ramadaan ku jirin yaa wax la cunaayay maxaan ka haynaa aan jiro ahayn maxaan ka haynaa aan gaas ahayn maxaan ka haynaa aan keliya xanuun ahayn maxaan ka haynaa aan subax kasta in dhakhtar saf loogu jiro aan ahayn walaalayaal wax kaloo laga haya ma laha idan cibaada walaalayaal bisha waa bilcibaado idan sidaa marka la sameeyo qofka muslimkaa waa inuu markuu afuro salaada cishaayigii taraawiixda isku soo diyaariyaa masaajidkaa la imaanaya waa la tukanayaa salaada taraawiixdaa wuxuu yidhi nebiga man qaama ramadaan qofkii istaaga iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi waa la dhaafayaa wixii horeeyay dembigiisa ah dumarka salaada taraawiixda masaajidada way imaan karaan oo nebigaa u fasaxay sala allahu calayhi wasalam waxaase fadli badan buri inay aqaladooda isaga tukadaan sababtu waxay tahay fitnadoodaa badan dhibaatadoodaa badan dumarka haddii salaad taraawiix aad imaanaysaan walaalayaal waxaad u imaadaan si anshax iyo asluub iyo akhlaaqay ku bihan tahay masaajidkan waa masaajidka ugu dhibka badan ay dumarku ku hayaan waxaa loo baahan yahay jalbaab soo qaata waxaa loo baahan yahay caqri udugha soo marsanina waxaa loo baahan yahay aqaladiina ku soo weysaysta war intaad soo socotaan si fiican u soo socda masaajidka imaada mar allaala markaad timaadaan waa bil cibaadee cibaadada ku dadaala
qur'aan akhrista. wallaahi inta badan waxaa laga soo wariyaa inay sameeyaan intay moobeelo soo qaataan, moobeelo yaa gadaal safka la istaagaya oo gadaal safka lagula sheekaysanayaa. waa dumarka dusha saaran gobol ka mid ah. ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala, daacada ilaahay ku dadaala. inta badan inta makarofanka la qabsaa dhaa dumarow aamusa, war dumarow ilaahay ka cabsada. maxaad soo raadsateen, ma cibaada mase dembi? maxaad soo raadsateen, ma wisri mise ajir? maxaad soo raadsateen akhlaaq xumo in makarofanka laydinku barbarya miyaa walaalayaal? oo laydin dhaho aamusa, oo laydin dhaho qur'aan akhrista, oo laydin dhaho dega. buuq waxaad ku malaysaa suuqa imtixaana meeshaa ku yaala kale. buuqa wax uu dhaama ma laha xaaladooda. qaar baa intay saa isaga seexdaan lagu isku saartaan iyo moobilo ku hadlaan. 11 bilood bay moobilku hadlayo hadduu meel wax taraayo. haddii qiimo uu u gaaraayo oo waxyaabo fiican uu noqonaayo 11 bilood bay hadlayeen soo maaha. xilli yar oo taraawiix lagu jiro walaalayaal, xishmeeya masaajidkana ixtiraama. gabdha baa jira oo dadka aamusiya oo dadka safa, xataa looma dhaga nugla, xataa la maqli maayo. aaway ixtiraamkii, aaway kala dambayntii, aaway muslimnimadii, aaway khayrkii, aaway taraawiixdii, aaway wixii ilaahay laga raadinaya subxaana wa tacaala. nana siidaa bay leedaha mid gobol ka mid a. nana siidaa horaan loo bixin karin, gadaal baan loo soo celin karin, aamus baan la dhihi karin, safka soo gal baan la dhihi karin. maaha sida suuqoo kale. meesha waa beyt ilaahi subxaana wa tacaala. ramadaan baa lagu sii jiraa haddana. waxa loo taagaya waa taraawiix ama waa qiyaam, waa tahajud walaalayaal. marka waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay. caaisha radia allahu tacaala canha xilli ay noolad miyaa dhow? waa maya. waxay tihi wallaahi nebi moxamed hadduu soo gaari lahaa dumarka maanta waxay keeneen, masaajidada waa ka mamnuuci lahaa sala allahu calayhi wasalam. waa dumar taabiciyaad ah. walaalayaal fitan baad ku jirtaan. war gabdhihii islaamka matalay baad tihiin, jalbaab baad wadataan, khayrkii baad hugan tihiin. waxaad soo aadeen beyt ilaah subxaana wa tacaala. kalaab ma aadan aadin, meel lagu tumanayo ma aadin. beytkii ilaahay baad dhex fadhisaan. in yar baa idiin dhiman, khayr badan ayaad ku dhex jirtaan ood ku sugan tihiine. intaa yariistee dhiman ramadaankan ku dara in sha allahu tacaala. ha noqdo ramadaankii ugu qiimaha badnaa aad soonto. ha noqdo oo niyeysan ramadaankii kuugu dambaynin inuu markaa yahay, ramadaanna kaaga dambaynin. ka kalena aad qubuur aadayso. haddaad sii noolaatana falilahi alxamdu sii wad soonka. haddaad dhimatana marka horba diyaar baad ahayd. walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiin ah maahane. intaa wixii ka dambeeya walaalayaal, waxaa la gaarayaa habeenkii caadi sideeda loo seexanayaa. maalintii waajibaadkii la qabsan jiray, salaadihii kulli waa sidoodii, wax isbedelay ma laha. waxaa lagaa rabaa akhlaaq fiican iyo in wixii waajibkaa ama xalaasha ku ahaa aad markaa ka soo naato. intaa wixii ka dambeeya ramadaanka suu u sii socdo waxaa la gaarayaa 10 dambe. 10ka ugu dambeeya ramadaankii horay ahayd waqtiga aan meeshaa fadhinay. caawa meeshaanaan fadhinaa. ma idinla tahay 2 maalmood inay ka soo wareegatay? jawaabtu waa maya. cumrigeena waa saas walaalayaal, israac waa degdegaya, saasuu u socdaa. wallaahi ramadaantii horaan meeshaa ka hadlaynay, ramadaantii kalaa noo timid. waxaan u malaynaa ka lamxin bilbasar, ilbiriqsi oo kale inay markaa tahay. saasuu malakumoodku noogu dul wareegayaa. marka saasuu malakumoodku noogu dul socdaa. idan hala dadaalo, ilaahayna ha laga baqo subxaana wa tacaala. 10ka dambe waa 10ka loogu rajo badan yahay in laga helo laylaة اlqadri. laylaة اlqadri qof allaala qofkii nasiib leh buu ilahay waafajiya subxaana wa tacaala. yaa ka nasiib badan qof laylaة اlqadri la waafajiyey. nin baa habeen aad u faraxsanaa oo dadka sharaab siinaayey, oo qof kastoo meesha soo mara sharaab siinaayey. war maxaad ku faraxday baa la yidhi. bakhtiyaa nasiib maraykanka laga samaynaya wuu ku guulaystay, krinkaaruu helay. wax kale ma jiro walaalayaal, subxaanaka ya ilaahay. heerkaasaan maraynaa maanta. maxaa loo baahan yahay marka? idinka uu ku farxay laylaة اlqadri qofka waafaqa ka warama. laylaة اlqadri maxaad u malaynaysaa qofkii ilaahay waafajiyo? laylaة اlqadri khayr min 1000 shahr. 1000 bilood bay ka khayr badan tahay. cumri aanan gaari lahayn, cibaado aan ku qaban lahayn baan ku qabanayna halka habeen. waxay ku ta'wiiliyaan 3 sano ama wax u dhow. ka waran hal habeen cibaado aad waafaqdo. inaa anzalnaahu fii laylaة اlqadri wma adraaka ma laylaة اlqadri. laylaة اlqadri khayr min 1000 shahr. 1000 bilood buu ka khayr badan yahay. waayo tanazalu اlmalaa'ika, malaa'ig baa soo degtaa, ruux baa soo deg, waa malakul jibriil. looma kala harin habeenka. jibriil hadduu ku imaanaya dhulka, malaa'igtii way soo degayaan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر bay la soo degayaan. سلاam hiy. habeenkaada nabadgelyo ahaatay. nin kasta oo taagan way salaamayaan. guri kasta oo lagu jiro way imaanayaan. waxay ugu bishaaraynayaan tahniyad iyo khayr. kii jiifay, kii qayilay waa la ag marayaa,
kii sigaarka cabaay waa la agmarayaa, kii naagta la fadhi waa la agmarayaa, waxaasoo dhan waa la agmarayaa. laakiin qof kastoo khayr iyo cibaado iyo wanaag ku taagan, man qaama laylaة اlqadri, qofkii istaaga iimaanan واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi, wixii tegey dembigiisa la cafiyaa buu yidhi rasuulka salى الlahu عalayه wasalam. idan habeenkaa waa in la raadiyaa, 10ka ugu dambeeya laga helaa, khaasatan tirooyinka isdheer. ramadaanka nebiga waa dadaali jiray sala allahu calayhi wasalam, 10ka dambena wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin intii hore. waayo waxaa laga yaabaa in laga helo laylatulqadri. laylatulqadrigaa loo qasdaa oo la raadiyaa. saxaabada in badan bay riyo ku arkeen. waan arkaa buu yidhi riyadiina inay iswaafaqday 10ka dambe ama tirooyinka isdheer ee qof kasta oo laylatulqadri raba inuu raadiyo ha ku raadiyo 10ka dambe, khaasatan tirooyinka isdheer meeshaa ka raadiya. xataa maalin mar baa loo waxyooday rasuulka oo la yidhi waa habeen hebel ee u sheeg ummadda. markuu soo galay masaajidku arkay 2 nin oo meesha ku doodaysa, dooda xumaanta ay leedahay walaalayaal. 2 ninaa murmaysay, saasuu u dul istaagay, waaba la hilmaansiiyey buu dhahay sala allahu calayh wasalam. inay khayr idinkugu jirtaa laga yaabaa ee ka raadiya 10ka dambe walow tirooyinka isdheer. waana khayr loogu jirtaaye haddii la dhihi lahaa 27 bay ku jirtaa oo si qaasa loo sheegi lahaa 27 qofkay dhaafto ma dadaali lahayn. wuxuu dhihi lahaa kollay ku dhaaftaye hadna seexo. waayo 21 haddaad dadaali weyso 23 baa dadaali, waa rajo, waa leedahay amaa laga helaa. 25 27 amay ku jirtaa, 29 amay ku jirtaa. saasaa marka loogu talagalay. khayr baa idinkugu jiree saa ugu raadiya buu dhahay nebiga. waxaana loogu rajo badan yahay baa lihi waa 27ka. say noqoto habeenkaa walaalayaal hala dadaalo. habeenkaa 10ka dambe macawistuu xihan jiray rasuulka sal alla alayh wasalam. wajadda washadda almi'zar, macawistiisuu adkaysan jiray. haddii aad alaab qaadayso marka hore guntigaad xirataa, suunkaad adkaysataa. macwis haddaad wadato waad xoojisaa, kadib waad kor u qaadaysaa. maxaad diidaysaa inta aad waddo inay kaa baxsato soo maaha? waad adkaynaysaa markaa. sidaa darteed rasuulku inuu hawl gelaayo, inuu shaqo adag gelaayo tilmaamaya, markaasuu guntigiisa xihan jiray sala allahu calayhi wasalam. qole waxay ku fasireen waa kinaaya, waa jimaacu ka fogaan jiray. 10ka dambe waa la iska daayaa qofkii kari karaa, laakiin qasab ma aha. xaaladda noocaasay tilmaamaysaa marka in 10ka si fiican loo raadiya. caaisha rasuulka u timid, waxay tihi yaa rasuul allah, haddaad ogaada ayu leyl ay habeen ay tahay laylatulqadri maxaan dhahaa, maxaan ku ducaystaa rasuulka ilaahayow? caqliga fiiri, caqli waxaa naqaanaa lagu bayac mushtara gabdhaheeda. mid kasta waa ganacsato, mid kasta diyaarad bay raacaysaa, mid kasta waxay soo dejinaysaa waxaysan ragga soo dejin jirin, laakiin ma kari karaan wixii cibaadahoo diin ah. caaisha fiiriya, ayu leyla ee aan ogaado laylatulqadri maxaan dhahaa? rasuulku wuxuu ugu jawaabay, quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. waxaad dhahdaa ilaahayow allaahuma inaka cafuwun, alla cafin badan baa tahay, cafintana waad jeceshahay, iska keey cafi. war haddii ilaahay ku cafiya maxaa kuu dhiman oo kaa maqan? war hadduu ilaahay ku dhaho addoontaydii waa ku cafiyey, waxa kaleed raadinaysa muxuu yahay? waxa kale aad dalbayso cafin ilaa markaad heshay muxuu yahay? subxaana wa tacaala. war addoonkaygiiyo waan ku cafiyey hadduu ilaahay ku dhaho, waxa kaloo kaa maqan maxay yihiin? abubakar ee ummadda nebiga asagaa ugu iimaan badnaa. nebiguu u yimid markaasuu dhaha yaa rasuul allah, waxaad i bartaa duco aan ku ducaysta fii salaatii, salaadeyda gudaheeda. muxuu yidhi nebiga? waxaad dhahdaa abubakaro, allaahumma inii dalamtu nafsii ظulman kaiira. abubakar haddii saarir xaggee ku jirnaa walaalayaal? abubakar radia allahu tacaala canhu id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan ina allaha macanaa. ninkii qur'aanka ilaahay uu ku xusay nebi moxamed inuu saaxiibkii yahay, yaa la yidhi dheh allaahumma inii dalamtu nafsii, weliba dulmi ma ahee dulman kaiiran, riwaayad kale kabiiran, dulmi badan ayaan dulmiyey. walaa yakfiru الdunuuba ilaa anta fاغfir lii مغfiraة min cindika وارxamnii inaka anta الغafuur الraxiim. waa abubakr radia allahu tacaala canhu. idan waxaaso dhan way naga qarsoon yihiin, waxaasoo dhan ma haysan. soon waxaan haysanaa oo laga yaabo xataa saxuurta in laga gaarsiiyey ayadoo salaad subax la adimay amase la tukaday. soonkaasaan wadanaa. soon waxaan wadanaa qiimo aan lahayn walaalayaal. waxaan wadanaa soon fisqi iyo macaasi iyo xumaan iyo beer iyo qishi qiyaano lagu dhex samaynaayo. soonkeena waa bidaaca musjaad, waa badeeco liidata. rabbi inuu naga aqbalo maahane, wallahi kii la aqbalaayo ma aha. rabbi fadligiisa inuu nooga aqbalo maahane, dulqaadkiisuu nooga aqbalo maahane, ma wadana walaal soonkii ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinayay. laakiin fadligiisa iyo naxariistiisa yaa markaa waasica subxaana wa tacaala. caaisha saasay dheh baa la yidhi, gurigeeda faynus ma yaalo, waa koow. firaash ma yaalo,
ay goglato waa labo 3 bil baa laba intay u dhamaatay tii saddexaad ii dhalatay bay tiri gurigeyga aan dab lagu shidin aanana aalin wax qof beer leh uu cuno radiyallahu ta'ala anha lama dhihin bariis isiida ilaahayo lama dhihin filla ii dhisda ilaahayo lama dhihin daan aan waxyaabo aroosaha ku tag ii sameeyde allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني عفنت إلهي بيرادينايين سان شيطانك أرادينينو جدكيسا نحرست اللي رادينايين سان أدونك أرادينينو آخر رادينايين سان أدونك وحياديسك أرادينينو حتى أدان حلالك أرادينينو ويفعنا الله حلال حرام بالمولى كلا آبيال سيقع أنت أنا كسوك شا سيلو تاجرا سيوح الله هلا وحلقا هاينا ملاها ninka saas ee ugu saray aad maanta u tagto oo konton aad u baahato 10,000 inuu ku amaahiyo gacantu ka taagaya asaga ugu sareeya asaga ugu horeeya asaga waxa uu kuwa anta dhan buraadiya salaad uma tukado uma soomo wanaag uma sameeyo habeenkii asaga u soo jeeda sidii loo heli lahaa aaway hadana gacan lagu ma dhigin aaway xagee ka baxay sida loo leeyahay yaa qabriga laga geynaya runtii حقيقي مرك إلهي الله صلاة سبحانه وتعالى فعاد إلهي إنها لقد دلاله إلهي أمر كيسنا كرها الله قاضه انت وحي كدام بي ولا ريال رمضان كا مركو ساس على دي سوق النقضة جبا أي أصي ضمانيا مرك هذينك أقدم بي وهذينك إلهي أقب ذيهي إنه نار أمضك حرية سبحانه وتعالى كورا قفك أن كجرين ليسك إلهي هيبتك نارت لك حرية قفك لقهوجي فقد حرم ولا هو جيبونا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رمضان شرع تبنجاره ولي أن لو دم بدافك ورمضان ومضي الله وضع فينا ينارت لك حرينا ولي أن جليس إلى ذاتك نارت لك حرينها وهبيك وقدم بي جبأها وقدم بي ونارت إنبضا إلى كحرينا ولي أن كجري كورن حدنا حديها وينك رمضان كقماضه أنا قصصنا لو قدم بدافين كان دمبنا إدد جارية أنا مركا كفرني ما خسارة سادفت هذيك احنا سلاح لو دلاله اذا رمضان كفضل جيسي قيمه والصلاه قفك مسلم كان وانه دلاله وان امرت الهي لفظ يا خير كان لو دلاله رمضان كمركو ضماده فضل الهي وحنا لو واجب ياله اما لو سنيي لحما الموت شوال الى مركز صوم لحدا مال موت شوال marka la soomo soddonkiin aan isku darsano waa 300 iyo 60 maalmood bay u dhigmaysaa waa hal sano oo kaamil halkii xasana waa 10 saadarteed soddonkii waxay noqonaysaa 300 60 maalmood 60 bay noqonaysaa 360 maalmood qofkii ramadaan sooma shawaal 6 raacsiya wuxuu la mid yahay qof sanadkii oo dhan soomay ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaalku waa sidaa ramadaanka marka la gaaro masaajidda waa la soo buuxiyaa dhalinyarada macawisay soo baxsadaan maalinta ramadaanka ugu dambayna waa la xareeyaa saas hayeelina saad u soo gashan ha noqoto insha Allah ta'ala khayrkii wanaagga lagu dadaalo ila xaqan ka barya inuu xaqana waafajiyo ila waxaan ka barya ramadaanka inuu nagaasiyo shacbaankeena iyo rajabkeen ilaahay ha noo barakeeyo ramadaan ilaahay ha nagaasiyo subhanahu wa ta'ala ummadaha naarta laga xoreynayana ilaahay ha nagu daro subhanahu wa ta'ala rabbiga waxaan ka baryaynaa naarka xoreyn waxaan raadinaynaa dambiga nagu batay ila uu dambigeena noo dhaaf ilaahu dambigeena noo cafi ilaahay naarta naga xorey ramadaanka iyo wanaagga soo socda fadligiisa inta xanuunsan ilaahay caafimaad taama Allah siiyo intii murugaysan murugta Allah ka qaado intii kurbaysan ilaahay kurbadaha ka feeyo subhanahu wa ta'ala ilaa waxaan ka baryanaa intii cibaadada ku culusna inuu cibaadada u sakhiro cibaadada u fududeeyo ilaa waxaan ka baryanaa subhanahu wa ta'ala ramadaanka inuu nagaarsiiyo kasoo hadaanan gaarin ilaahay naxariistiisa ayaa rajaynayna subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh